bajaajala markantuu naftiisa u yaabay ayuu tan iska celiyaa ushaan kale iska celiyaa bistoolada madaxa loogu dhufanaya iska celiyaa ninkan kala tuuraa gaarigaa ku gambadaa waxa dhagaxan korkiisa ku dhacaya waxa bira madaxiisa ku dhacaya dhoobadhax yarna dhanka kale intay ka imaadaba iyadana ku wada waa lagu wadaabo ninka odayga meel uu ka baxo ayuu waayay ninkii qooqaagana asagana nin kale intay gees isku qabsadeen dukum daakum ayay iska dhigeen dukum daakum ayay iska dhigeen dhanka kalena ciidankii la keenay dhanka kale ciidanka la keenana iyagana intay is hareereeyeen afartan dhinac waxay kasoo galeen marka bajaajil iyo qooqaan iyo maadlihadheed ayay afartan dhinac kasoo galeen afartan dhinacana iyadoo marka sidaas u xiranba ayay dadkii kalena yaabeenba dadkii kale goobta ku sugnaa casheenayeena iyagana waaba kala ordeenba haatan aan kula hadlaya marka ninka bajaajila aha halkaas waa ka daqriya halkaas sidoo kalena bir ayaa kaaga taala haatan aan kula hadlayana isbitaal ayuu yeelaa qooqaagan isagana meel laguma sheego dhoobadhax yarna waxaaba ka go-needba xale maadlahalin inay meydkeeda ka tilaabsato ayaa ka go-needba xaalkana aad ayuu adigay salaamullah saaxiibayaal warmaalka sidaa naga dhaha maanta mar kale muuqaal cusub janalkana daaf cusubta subscribe hadda hornoola joogtana aad baan kaga mahadcelinaynaa maalin walbana sida hore nooga barteena arrimaha Soomaaliya wax ka dhacaya marka sheekooyinka taagan ee dhacdooyinka taagan ayaa maalba sida saaxiibayaal ugu soo qabanaa si adigana maalin walba aad update noqoto adiguna laagtay sharti waxaas wax weyn maane warbaalka sidaa naga dhaha saaxiibayaal maanta sheekooyinka hore way ka adag tahay mawduucyo horena waa ka adigaya muuqaaladii hore wax badan ayuu kaga duwan yahay maadaama xalay luuqa canjeerada lagu kala cararo luuqa canjeerada meesha la yiraahdo loo kala carrabo horta luuqa canjeerada niga babadatay waa meel intee maxaana laga sameeyaa qaab noocee ayuunu taalaa degmadeena ayuunu ku taalaa horta dagaalka intaan dul istaagin ka hor horta luuqa canjeeradan ayaaba isagaba naftigiisaba barasho gooni u baahan maadaama dadka ugu xiran keliya ee caasimada dalkii ku sugneen qaarkoodna gobolada ku sugiin qaarkoodna qurbaha ku sugiin bal luuqan horta idin baro intaan dagaalka dul istaagin ka hor horta luuqa canjeerada saaxiibayaal wuxuu ku yaalaa meel yiraahdo Tareex gaar ahaan degmada Hodan ayuu ku yaalaa markaa ka yimaadid u fiirsan marka tilmaanaan markaa ka yimaadid number 4 ee Xayaat Mool ah ka yimaadid toos ayaa u soconaysaa dhanka maqaayada Fadxi ama toos inta u gudbinba dhankaasi KBB-taada ka hor oo Xayaat Mool markaas soo dhaaftay kilomitir 4 markaa ka soo leexatid number 4 ka soo leexatid Xayaat Mool ka soo leexatid dhabarka dambe marka maqaayada Fadxi inta gaarin dhabarka dambe ayuu ku tilmaan ahaan taasna waa taas marka meesha lagu leeyahay luuqa canjeerada meeshaas marka saaxiibayaal habeenka aad ayuu shidan tahay waa lagu qaxweeyaa waa lagu casheeyaa oo tiktokerada youtuberada wariyaasha shaqaalaha dawladda cid walba oo saameyn leh cid walba oo bulshada ka dhex muuqata dadka ay profilka dhammaan ayaa marka isku taga tilmaantiina faantu waa rajeynayaa marka kelimad foor ka soo noqotid Xayaat Mool sidaas toos u aadid maqaayad Fadxi inta aadid dhabarka dambe bis ayaa sidaan u leexanaysaa meel luuqa ayaa sidaan loo galaa meesha waa meel nuucaasa marka waa tahay xale marka halka ayaa saaxiibayaal marka iyadoo lagu casheenayo waliba maalhalin iyo bajaajil boy qooqaaga oo ku casheenayaan ayaa gabadhii dhoobdhax yareed meeshaas dig ka soo tiray gabadhii dhoobdhax yareed dig ka soo tiray isla markaasna iyadooba ciyaalnaba sugada wadata racad wadata bistooladana wadata gaadiidna ku hubaysan ayay goobtii marka soo gaareen oo waliba tilmaana waxa jirtaba in saddexdaas qof iminka adin sheegay oo qooqaaga iyo maari halin iyo bajaajil boy ah inay markaa goobta ku sugin isla markaana ay raadinayeen goobta markay soo gaareen marka gawaarida laga soo degay gabadhii dhoobdhax yarna ciyaalka dharcadka u tilmaanto waa kuwaas saddexda qof ay tirana ayaa marka nin la yiraahdo qooqaaga oo isla markaasna tuunka qabay tuun xoogaa ku jiray ayaa durbaba soo istaagay kana hortagay nimankii doodeer ayaa dhex martay halkaana gacan ka hadal ayaa bilowday oo qooqaaga halkaas ayaa marka fiir ku bilaabay markii halkaas isaga dagaalkiisu ka kacay ayaa gabadhii dhooba ahayd oo ciidanka tirada badan oo racadka isku haleynaysa toos u soo aadmaan halin markii soo aadana ninkii bajaajil boy ahaa oo gabadhana filan la jiray maalmihii ugu dambeeyay isku badnaayeen ayaa isagana gabadhii difaacay oo isku dhigay laakiin isagoo marka gacan qaadin dhoobdhax yar oo aad u xanaaqsaneed maalhalin doonaysa inay meedkeeda ka tilaabsato ayaa wax walba markii doonaysa inay gabadhaasi ku sameeyso ninkan odaga ayaa isku dhigay marka ninkan odaga ayaa isku dhigay dhaawacyo badan ayaana gaaray isaga oo wajiga ayaan u badnaayeen oo halkaas waa dilaacday oo dhuunta halkaas way dilaacdo oo meelo badan ayaa isagana dhaawacay gaareen oo isbitaal ayaa ninkii haatan aan kula hadlay oo yaala marka kacdoonkii marka dagaalka ka bilowday ayaa marka sii xoogaystay oo goobtii dhanba
aad ayaa loo soo buuxdhaafiyey goobtii, aad ayaa loo soo buuxdhaafiyey oo ciidankii ragcadka ee wasdhuubo waxaa ka gooneed marka in gabadhaas sidaan sheegaba ee meydkeeda ka tilaabsanaya maadaama iyadu ay soo wadata. laakiin haatan marka waxaa soo baxaysa shaqaalihii dowladda weliba kuwa ragcadka ahaaba inay iminka dhalinyarada tictakerska ahaaba ee iminka la safanayaan oo maalin walba qofkii careysan oo xanaaqsan oo bistoolintuu soo qaato oo ciidan hadduu soo qaadanayo oo qofkii kala aadayo halkaas marka waxbaa iminka ka bilaabanaya. sidaad ogeedeenna kiis adag ayaa horu jira oo kaasuu la xiriiray luzina iyo habi oo iyagana sidaad ogeedeen racad soo watay. luzina iyo habi oo sidaad ogeedeenna iyagana habeenka la sheegay inay ka dhex muuqanayeen goobta ciyaal racad oo bistoolado wata, ciyaal racda oo bistoolado wata oo kiiskooda maxkamadda inay gaartay aad ogeedeen. haatan marka racadkii nabasgudda ahaa ayaa tictakerska marka u kala helinaya, tictakerskii u kala helinaya weliba iyagoo hubeysanna marwalba qeyb la wadanayo, marwalba iyagoo hubeysanna qeyb la wadanayo isla markaana goob hor leh lagu duuliyo. dhacdada xale marka waxay daba socotaa marka dhacdada luzina maadaama luzina ee hore usoo wadatay marka ciidan xalana waa taasa dhow dhex yarna ciidan soo wadatay. haatan marka halkaa wado marka waxaa ka furmaysaba tictakerskiiba inay nabasugudii kusii dhawaanayeen isla markaasna mid walba oo careysan oo soo wadanay ciidan, mid walba oo careysan oo soo wadanay ciidan. xalana halkaasna dagaalkii ugu adkaa abid ayaa ka dhacay oo waxba la isku mareeba. ninkii qooqaagana 10 ayaa lagu garaacana oo markii koowaadna hal qof ayay isqabsadeen, dagaalka markuu sii weynaadana 10 ayaa lagu garaacay. ninkii bajaaj lahaana waa kaas isagana dhaawacyo adag ay gaareen. gabadhaas marka dhuubo ujeedada fog ee markay dagaalka usoo qaaday cid sheegi karaysa ma jirto, laakiin xal waxaa ka gooneedba in kooxdani cagta mariso ayaa ka gooneed maadaama marka racadkaas aad ku hubeysna soo wadatay sidoo kalena gaadiid badanna ay ku socdeen luuqa canjeerada marka oo laba wada laga soo galo, labada wadana gawaari ayay ku gooyeen oo halkaana xalay iyaga ayay xoreysneed, xalayna halkaa iyaga ayay xoreysneed oo dagaalkaas ayaana marka isha lagu hayay. haatan marka dadku saaka waagi markuu bariyey aad ayaa dagaalka loo hadlayaa oo qof walba markuu cusweydiinayaaba war waa isdagaali jiray muxuma, laakiin dagaal walba ujeedo ayuu leeyahay. dhuubo dhex yar maalhalin sababta usoo warartay maxay tahay, maxaana labadooda sida saxda kaga dambeeyey. dadka qaar ayaa marka ku andacoonayo gabadhiina saxin lahayd iyo maalhalina saaxiibahayn ee halkaas iyadana ay kasoo duulaan tagtay. dadka qaar ayaa ku andacoonaya, dadka qaarna iyagana jawaab waa bulaayihiinba oo iyagana saaka waxayba leeyihiinba war dagaalkan ujeedada saxda ka dambeysa muxuu noqon karaya. caalka saaxiibeel markuu adigay kiiskaana iminka sida muuqan karaysana wuxuu biishuban karayaa maadaama luzina habi iyagana maxkamadda kasoo muuqdeen iyagoo markaas weliba lala sii xiriirinayay in ciidan ee goobta dagaalka kasoo muuqdeen. kanna ciidan ayaa sidoo kale kasoo muuqday oo kiiskaana isagana maxkamadda ayuu gaari doonaa maadaama nabadsugudiiba haatan la doonayaba inay shacabka shaqa adag u qabtaan la doonayay. waa kuwaas la kala safanaya oo weliba dadkii caankaana soo raacaya. maxaa kaga baxartay waa muhiim, muuqaalkana sii shargaray.